iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay soo badanayaan dadka soo xaroonaya ay abaartu ka farasaartay xoolahooda iyo deegaanka Karinbiyood waxa uu ka mid yahay deegaanada ay ku badan yihiin dadka ay abaartu ka farasaartay xoolahoodii oo gaar ahaan hoos timaada degmadaasi Ceelaf Weyn waxaa ku nool deegaankaasi dad u tiro badan oo ay abaartu ka farasaartay xoolahoodii ma haystaan hooyo iyo meel ay kaga dhuntaan dhaxanta maadaama lagu guda jiro xilli roobaad waxayna xukuumadda Soomaaliland ka codsadeen in gargaar degdeg ah lala soo waxayna xukuumadda Soomaaliland ka codsadeen in gargaar degdeg ah iyo mid bilaad lala soo gaaro waa kuwan dadka deegaankaasi oo ka dalbanaya xukuumadda in gargaar degdeg ah lala soo gaaro warahmatullaahi wabarakaatuh waana gaarsiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiga qaranka abaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo barasaabka gobolka waxaan gaarsiin markaa tahay Karinbiyood dadkaas oo ahaa 200 oo qoys oo ahaa dad xoolo dhaqatada ah marka laga reebo Barakaramaan iyo Bancade waxaanu haynaa lambar 3ga heerka ugu yar wuxuu ahaa 300 oo neef xagga ariga geela 100 halaad 50 halaad loo aanu lahayn fardaanu lahayn xoolii markaanu ilaahay xamdiga waxaan ugu xamdinaqanaa ilaahay dadkii baan noo mar haddaan dadkii naga raacin abaari hore dadka raacin hadda dowladda waxaan ka codsanaynaa in hay'adaha deeqda bixiya noo keeno ay wax nala qabtaan geel konton buu ahaa wixii baxay 20 baanu arigay kan geelina 5 baanu kan ma garato awr male dabeer male dhabarkaanu dhaafsan hooy male hanti kale ma haysan hadda dawaan sanayna waxaan iyo waxaan صدق ما كهري وحلا عنا مرها وحيش سنة كمان أنا تأكل بدن حتى إنه وحنو بهنا إن أنا ركض أنا ركض شوشي هاي مرها هذا من وحلا عنا مرها ما يدق بحياة أما كنا حياة ما هو حريصنا إلى جهلية لها تبدأ يعدي قصيام بقى وحنو لنا هاي هذا الشيء يوم يسوق بالجبينية وارد dadka kan xagga biyaha xagga waxa weeyaan waa dad aad iyo aad maanta u baahan xukuumadooda iyo hay'adaha uga baahan tahay qudo Soomaaliland oo dhan salaamaya madaxweynaha Axmed Maxamed Siiraayo baan salaamaya waxaan u baahanahay dawladda ka cusubsanaya inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan waxaan Axmed Maxamed Cali Cable TV Ceelaf Weyn